madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya ee Muqdisho ku qaabilay ambassador Remy Mersho oo ah safiir cusub ee dalka Faransiiska ay u soo magacaawdeen inuu u fadhiisto Soomaaliya waxa uu madaxweynaha kulan ula qaatay safiirka kadib uu ka gudoomay waraaqaha aqoonsiga kulankani kolkii uu soo gabagaboobay ayaa waxa saxaafadda si wada jir ula hadlay siyahayaha xilka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan iyo ambassadorka wadanka Faransiiska ay u soo magacaawdeen Soomaaliya Fuusiyo Yuusuf Xaaji Aadan siyahayaha xilka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ugu horeyn faahfaahisay kulankani dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo safiirka safiirku maanta wuxuu inoogu yimi inuu waraaqaha dhiibo isla markaana cilaaqaad dardargelina oo xagga dhaqaale xagga ay waxyaalo badan gacan naga siin doonaan wadankana ay maalgelin ku sameyn doonaan inuu madaxweynaha kala hadlo aad baynu soo dhaweynay madaxweynuhu si fiican buu ugu ballan qaaday in magaranaysa ay diyaar u yahay dawladda Faransiiska aad ugu soo dhaweynaya dalka inay maalgelin weyn ka sameeyaan waxaan rajaynaynaa in guul ay ku dhamaato heshiisyada aan gali doono kuwa horena aynu lahayn dib loo cusboonaysiin doono aad baan ugu soo dhaweynaynaa safiirka Faransiiska iyo dawladda Faransiiska oo maanta waraaqahoodii ay dhiibeen inay dalka Soomaaliya cilaaqaadkii aad loo dardargeliyo ambassadorka ayaa intaa kadib waxa uu faahfaahiyay waxyaabaha dawladda Faransiiska ay hore kaga soo qabteen Soomaaliya iyo waliba waxa imika uu qorshaysan. I had the opportunity this morning to meet the President and to present my credentials to become the new French ambassador accredited in Mogadishu. safiirku waxa uu yiri fursad ayay ii tahay inaan Muqdisho imaado lana kulmo madaxweynaha Soomaaliya aana ku wareejiyo dukumiintigayga ah inaan noqdo safiirka cusub ee dawladda Faransiiska u fariisanaya Soomaaliya waana mid muhiim ah Faransiiskuna waxa ay xasalinta Soomaaliya si isdaba joog ugu lug lahaayeen muddo ka badan 20 sano waxaana ku bixinay dadaal waliba ee lagu xasilin karo dalka ku lug lahaanshaha ma ahayn mid aad u muuqda laakiin waxa uu ahaa mid aad muhiim u ah Faransiiskuna waxa ay gacan ka geysteen dhaqaalaha AMISOM midowga Afrika iyo waliba qaramada midoobay waxaana sanadii la soo dhaaftay aan ku bixinay Soomaaliya in ka badan 100 milyan oo euro si aan ugu taageerno xasilinta Soomaaliya. Our involvement is maybe not very visible, but it's very important as France is contributing to financing the AMISOM through the EU or the UN, and the effort made by French government last year was more than €100 million contribution in order to support the stabilization of the country.